السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة وأضيفنا حوالي له وأدي السلامي. وعن ربع مرة سيدة ضبطة طبعا كميدة هاي odayaashu u ololeeyo barashada af Soomaaliga taasna waxaa iga keenay kadib markaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhashay qurbaha ama ku barbaarayba oo dayacay af Soomaaliga runtii aad arkaysid macnaha af Soomaaligoodii حتى إن قاركود إني كعشان إن أسمع إني كواحد لامب مركان أركي دباتاسي كورنيسو إسلام مركز نعواي وأنا سدح السنة أيام وحنكا ديجي لغة الصومالية من السور ستيت يونيفرسيتي مانكيرو أرضي بدون الصومالي جنسية كسلا وديجي معنا لغة الصومالية كنت أركي مركي قاركود أرضي الجنسية كانت إني كيف عنيهين صومالي اللغة الصومالية ونردن وعيان دروا واحد سيدا دراديد أيام وحن اللي بالجيل كهرواتي هير جامعة قالين بالقوة الصعودو سيدا لو بدبادية لو يلقليا لغة الصومالية نقدان جيل بريكا مالين كو هادلا أما حنا كرو لابا لغادات سيدا دراديد وحواي عرفت وعيت لها الحاجة الاختراع necessity is the mother of invention وحواي مادام أنا هاي أبي سيداد عيالة له يالكي قاركون انت بدن يكو كورين قرباها قارن يكو دشين بقرباها أيا وحان كو أنسدي إنان قادو أولولو لغو هرمرينيو لغونا ديريجينيو لغة الصومالية دور برسنتيشن أو باوربوينت أو أيان سميي ميلا بدن فقارين بدن ليسكو يميت كلما فرق بدن أيان كسو بانديجي مركز التوبيجي وحوها قروحة الصومالية the beauty of Somali language أو مدوني إنان كهادلو beauty Somali language لكن waxaan rabaa dadka inaan tuso buug yar oo aan diyaariyey oo aan u bixiyey bar ama baro buugan waxaan ugu talagalay ilmaha yaryarka ah in ay bartaan af Soomaaliga buugan waxaan u diyaarisay aad iyo aad u sahlan waa erey iyo sawir runtii waa sida buugtan ingiriiska ama luqadaha kaleenta oo lagu magacaabo children books marka buugaas ayaan diyaariyey ilaa iyo 400 xabo oo koobi aan ka sameeyey waan qaybiyey hadda waxaan hayaa buugi oo PDF ah buugi waa bilaash waxa lacaga maaha marka waxaan ogeysiinayaa dhammaan waalidiinta ay danka hayso inay baraan ilmahooda af Soomaaliga in buugaasi oo PDF ah soo diri karo si ay ilmaha ugu faa'iideeyaan waxaan iga dardaaran ah waalid waliba haddii aad bartay ilmahaada af Soomaaliga waxa waaye cunugaasi ama ilmahaasi dhaqanka Soomaalida kama fogaanayaan runtii oo ku dhagan yihiin kaas luqadda waxay astaan u tahay oo u taagan tahay afka dhaqanka qofka ay u taagan tahay luqadda haddii ilmahayna aan ku barbaarino af Soomaaliga waxaan hubaa dhaqanka Soomaaligana way baranayaan wayna la qabsanaan laakiin markay qaataan luqad qalaad oo luqadooda aan ahayn dhaqankaas ayay raacaan oo luqadaas ay leedahay haddaba warkii aan ku dheerayn buugga waxaa la yidhaahaa bar ama baro
waaye buug bilaash ah ilaa iyo 10 page ayuu ka kooban yahay sidaan hore kugu sheegay waa erayo iyo sawir halka waxaa ka muuqdo farqalaad hamoodin carabku qaldi maayo ee sidii caanaha qurquriya sida badanaa markasta waxaan xusaa qofka wuxuu fikradiisa ku cabiri karo oo danta uu leeyahay ku gudbin karo sida uu rabo waa luqadiisa waxa waaye soomaalida hore waxay u tiray biyo sacabadada looga dhargaa marka afkaaga waaye midka laga maarmaanka ah ee u soo noqonaysid marka buuggaas waa bilaash waxa waaye cid alla ciddii rabto khaasatan waalidiinta waxaan idin siinayaa emailkayga oo ah fanax58@gmail.com waa FANAH ama FANAH 58@gmail.com waxa waaye markii aan emailkaa helo waxaan kuu soo diri doonaa lifaaq ama attachment PDF ah oo color ah sidaa daraaddeed waad daawacan kartaa ilmahana waad ugu faa'iideyn kartaa marka waalidiinta maadaama aan waalid ahay aniga waalidiintan waxaan kula dardaarmayaa ilmahooda inay kula dadaalaan barashada af soomaaliga okay haddii ka mida buug ayda tuso masalan waa kaasa masalan baal bakayle buug tiir tuun turub jalamad jeer joodari marka sidaas ayuu ku socdaa runtii waxa waaye waa buug aada u fiican runaantii bisraaxatan ilmahana kama caajisayaan wayna jeclaysanayaan sidaan hubo sida aan jeclahay marka waalidow waxaa idinka tagayaa dardaaran ah waaliduna ku dadaal ilmahaada inaad barto af soomaaliga marka sababtoo ah af soomaaliga waa midka asaasiga ah ilmahan qurbaa ku barbaaray adeeradood iyo abtidood iyo walaalahood wadankii ayay jiraan oo soomaaliya ay ku hadlaan si ilmahaasi u noqdaan ilmo lahana qaadi karo lana qabsan karo dabeecad kasta ay tagaan waa in luqadda af soomaaliga xoogga la saaraa dadkana la baraa insha allah hadduu ilaah yiraaho waxaa noo soo socdo qaybtii saddexaad barnaamijkii aan ugu magacdaray quruxda af soomaaliga the beauty of Somali language insha allah waa cashiro tixano ah oo aada iyo aada u wanaagsan maantiina qofkii af soomaaliga inuu barto kaga faa'iidaysan karo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته